kulan wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada wararkeena ku maqli doontaana waxaa kamid ah dagaal ka socda magaalada Baydhabo iyo xiisad xoogan oo ka taagan maamulka Koonfur Galbeed ciidamo la baxay badbaadinta Koonfur Galbeed oo la wareegay qaybo kamid ah magaalada Baydhabo iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo u dirtay wafdi balaaran kuwaasi oo gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya oo uga digtay lafta gareen inuu xilligan barakiciyo shacbiga ku dhaqan magaalada Baydhabo xilli gudoomiyihii hore ee muddo kordhinta u sameeyay lafta gareen oo war la yaab leh ka soo saaray xaaladda cakiran ee ka taagan magaalada Baydhabo iyo waliba qaar ka mid ah siyaasiyiinta maamulka Koonfur Galbeed oo ayaguna uga digay xaaladda cakiran ee halkaasi ka taagan in dowladda federaalka Soomaaliya arintaasi ay farageliso iyadoo gudoomiyaha golaha shacabka uu ku fashilmay inuu wax ka qabto xiisadda xoogan ee ka taagan maamulka Koonfur Galbeed taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka Nisamaad Salaad iyo maamulka gobolka Gado oo go'aan lama filaan ah ka soo saaray wada hadallo ay ku jireen xalay ilaa iyo saaka subaxnimadii hore kuwaasi oo inta badan lid ku ahaa maamulka Jubbaland iyo talaabooyin markaasi laga qaadayo maamulka Axmed Maxamed Islaam oo ay soo saareen haddaba maxay tahay go'aanka markaasi ay qaadan doonaan maamulka Jubbaland oo horeyba xiriirka ugu jaray dowladda federaalka Soomaaliya warkeena ayaan ku soo qaadan doonaa dowladda federaalka Soomaaliyana waxay diyaarisay qorshayaal wax loogu qabanayo deegaanada ururka Al-Shabaab ay ciidamadu ka xoreeyeen iyadoo dhinaca kalena dowladdu ay dardar gelin doonto xoojinta qorshayaasha markaasi ciidamada xooga dalka iyo kuwa dadka deegaanku ay ku qabsanayaan deegaanada ururka ay weli gacanta ku hayaan iyadoo weliba ay socoto qorshayaal markaasi ka dhana gobollo cusub oo markaasi dagaaladu ay si toos uga bilowdeen kuwaasi oo isku jira gobolka Jubbada Dhexe iyo weliba Bay iyo Bakool oo intooda badan aysan hore uga soconin wax dagaal dowladda federaalka Soomaaliya ayaa qaadanayso go'aamo aad u adag kuwaasi oo ay kula dagaalamayso ururka argagixisada Al-Shabaab iyo weliba sidoo kale ururada Daacish iyo weliba goobaha markaasi ay ururada argagixisada weli ay gacanta ku hayaan ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho waxay gacanta ku soo dhigeen rag ku hubaysnaa qaraxyo iyo weliba hub aad u culculus kuwaasi oo damacoodu ahaa inay weeraraan xarumo dowladeed ayay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeysay howlgallo xoogan ee ka waday magaalada Muqdisho gacanta ku soo dhigay waxayna dhanka kale sheegeen inay ku raad joogaan gawaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa kuwaasi oo loo soo ekeysiyay ciidamada ammaanka gawaarida ay adeegsadaan kuwaasi oo la sheegay inay ku dhuumaalaysanayaan magaalada Muqdisho waxayna ciidamadu sheegeen inay haatan markaasi ku raad joogaan sidii gebi ahaanba ay gacanta ugu soo dhig lahaayeen Ilhaan Cumar oo ka tirsan golaha Koongareeska ee dalka Mareykanka ayaa iyaduna ku soo wajahan dalka Soomaaliya kadib booqashadii madaxweynaha ee dalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay wadankaasi Mareykanka waxaa soo taraya mas'uuliyiin la sheegay inay ka tirsan yihiin dowladda Mareykanka kuwaasi oo la sheegay inay dib ugu soo laabanayaan muddo dheer kadib xaaladda dalka Soomaaliya oo ka soo reynayso marka loo eego 30 sano ka hor halkii ay taagneyd guud ahaan daawadayaal qodobadaasi iyo weliba kuwa kale oo xasaasi ah ka mid tahay dabaqii gubtay ee ku yaala wadanka Faransiiska oo Soomaalida ku dhimatay ay korortay ayaan ayadana soo qaadan doonaa qodobadaasi iyo weliba kuwa kale faahfaahsan ayaa halkan ku maqli doontaan haddii ay tahay markaadii kuugu horreysay bartaan aad soo boqoto channelka subscribe saar oo gaarsii asxaabtaada kale hore haddaad noola joogtayna waad ku mahadsan tahay daawashadaada halkaa ka sii wad aynu ku bilownay xiisadda ka taagan maamulka Koonfur Galbeed ayaa mar walba marka dambayso waxa ay sii gelisaa xaalad cakiran iyo weliba qallafnaan markaasi ay muujinayaan mas'uuliyiinta isku hayso maamulada iyo weliba sidoo kale in markaasi Cabdicasiis lafta gareen xilka qaadis lagu sameeyo ayaa hawada isku sii shareeray iyadoo weliba ay jiraan ciidamo la baxay badbaadinta maamulka Koonfur Galbeed kuwaasi oo dagaal xoogan ku qaaday subaxnimadii hore saaka ciidamada sida gaarka uga amar qaato madaxweyne Cabdicasiis lafta gareen kuwaasi oo ku hareeraysan madaxtooyada iyo weliba guud ahaanba xarumaha dowladda ee maamulka Koonfur Galbeed waxay soo taraya walaaca xoogan ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka muujinayso xaaladda cakiran ee ka taagan maamulka Koonfur Galbeed iyadoo marar badan dowladdu ay halkaasi u dirtay wafti ka madax bannaan maamulka Koonfur Galbeed iyo weliba siyaasiyiintan mucaaradka ah ee markaasi ooda soo jabsaday kuwaasi oo dhibaatooyin xoogan ka wada guud ahaanba maamulka Koonfur Galbeed ciidamadan ayaa la sheegay inay isku balaadhiyeen qaybo kamid ah magaalada Baydhabo ciidamadan ayaa isku jira ciidamada maamulka Koonfur Galbeed qayb kamid ah iyo weliba ciidamo la sheegay inay si toos ah uga amar qaataan gudoomiyaha golaha shacabka iyo weliba wasiirka diinta iyo waqaafta Sheekh Mutaar Robo Abu Mansuur oo horey u ahaa
mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreyso ururka argagixisada al-shabaab. walow dowladda xasan sheekh maxamuud ay xil muhiima u dhibtay, haddana ninkan ayaad moodaa tan iyo inta ooda laga qaaday ama islamarkaana laga fasaxay xabsi gurigii ay gelisay dowladdii hore maxamed cabdulaahi farmaajo, ayaad moodaa inuu dhaqdhaqaaq xoogan oo lid ku ah cabdicasiis laftagareen uu ka bilaabay guud ahaanba magaalooyinka xudur, baydhabo iyo maamulka koonfur galbeed guud ahaantiis. waxaana la arkayaa dhaqdhaqaaq xoogan oo markaasi uu ku bixinayo lacago aada u tiro badan oo markaasi uu rabo inuu gebi ahaanba xididada ugu siibo ka bilaabay maamulka koonfur galbeed. marar badan ayuu sheegay inuusan raalli ka ahayn waxa ka socda maamulka koonfur galbeed oo hore oo ugu tartamay mas-uulkani, ayaa haddana waxaa is soo taraya in ciidamo asaga si toos uga amar qaato ay saaka weerar ku qaadeen madaxtooyadii dhannayd ee looga arriminayay maamulka koonfur galbeed. marar badan ayay isku dayeen ciidamadani in ay magacani ku dhawaaqaan, laakiin way adkayd xaaladdu. markaasina waxaa midaysnaa ciidanka maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiyo cabdicasiis laftagareen. laakiin wixiiba waxay bedelmeen markii uu soo hadlay gudoomiyihii muddo kordhinta u sameeyey cabdicasiis laftagareen iyo weliba gudoomiyihii hore ee golaha shacabka mursal oo asagu markaasi gebi ahaanba ka hor yimid muddo kororsiga iyo xaaladda cakaran ee ka taagan maamulka koonfur galbeed. waxaana uu ku sababeeyey muddo kordhintii horey uu ugu sameeyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ee markii dambe noqotay mid xaaraana, ayaa haddana waxa uu sheegay in cabdicasiis laftagareen iyo maamulkiisu waxay ku joogaan ay tahay mid la mid ah midii maxamed cabdulaahi farmaajo uu asagu u sameeyey. xaaladda magaalada baydhabo ayaana ah mid gebi ahaanba kasii daraysa, iyadoo dowladda federaalk soomaaliyana ay halkaasi mas-uuliyiin kala duwan ay u dirayso sifa ay wax uga qabtaan ama ay u dejiyaanba xaaladda cakaran ee halkaasi ka taagan. waxaa la filayaa wasiirka arrimaha gudaha ee dalka soomaaliya axmed macalin fiqih inuu markaasi gaari doono magaalada baydhabo sifa gebi ahaanba uu uga hortago islamarkaana uu dejiyo xaaladda cakaran ee ka taagan maamulka baydhabo. dhanka kaleeto waxaa iyadana la filayaa in ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ee markaasi asaguna uu gaadho sifa uu u dejiyo, maadaama arinta ka taagan maamulka koonfur galbeed ay tahay mid asaga si toosa u hoosmaato, laakiin lama garanayo xiliga ra-iisul wasaaruhu ka degi doono magaalada baydhabo. dhanka kaleeto mahad salaad iyo weliba maamulka gobolka gedo oo soo saaray go-aan lid ku ah maamulka jubbaland iyo xiisada gobolka gedo oo mar labaad cirka isku sharirta, iyadoo taliyaha hay-adda sirdoonka qaranka nisa shalay uu ka degay magaalada baydhabo ayaa isa soo taraya walaaca ay qabaan maamulka jubbaland iyo weliba qaar ka mid a siyaasiyiinta ka aragtida duwan dowladda federaalk soomaaliya. xaalad cakaran ayaana ka taagan gobolka gedo, iyadoo 3 beri ka hor ay tageen halkaasi wasiir janan iyo weliba senator fartaag oo markaasi loo igmaday inay iyagu hormuud u noqdaan kacdoonka ka curanaya gobolka gedo, kaasi oo lagula dagaalamayo kooxda khawaarijta al-shabaab, iyo weliba sidoo kaleeto in lala dagaalamo xilkana laga tuuro axmed maxamed islaam oo markaasi dowlad walba lugaha u geliya, kaasi oo ku noqday kansar siyaasadeed maamul kasta oo markaasi taga villa soomaaliya. axmed maxamed islaam iyo weliba xasan sheekh maxamuud ayaa marar badan ka wada hadlay xiisada gobolka gedo iyo waxa laga yeelayo xilkan uu dhowr iyo 10 sano ku fadhiyo, islamarkaana uusan u diyaarsanayn inuu dhinac uga dhaqaaqo maamulka jubbaland. waxaana gebi ahaanba arrintaasi xasan sheekh maxamuud ee lagu yidhi waxaad ku socotaa wadadii horey aanu ka diidnay farmaajo, waxaadna lugaha kula jirtaa xaaladii ku fashin lahayd. waxaana xilligaasi u bilaabay axmed maxamed islaam iyo saaxiibkii saciid cabdulaahi deni abaabul ka dhana madaxweynaha iyo weliba guddoonka golaha shacabka. waxaana la arkayay xildhibaano markaasi diyaarinaya mooshin ka dhana madaxda ugu sarreysa dalka soomaaliya, walow arrintii ay gebi ahaanba fashil kusoo dhammaatay. ugu dambeynna lagu jeedsaday sacdiyo oo markaasi ahayd mid aan iyadu awood saasaba ku lahayn baarlamaanka iyo weliba sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya. si kastaba go-aamadan ay soo saareen markaasi mahad salaad iyo maamulka gobolka gedo ayaa iskugu jira in duulaan lagu qaado goobaha ay ku sugan yihiin ururka argagixisada al-shabaab, iyo dhanka kaleeto in ciidamo isku dhafa laga soo dejiyo magaalada aandhehe ciidamo markaasi dowladda federaalk soomaaliya ay kasoo dejiso magaalada garbaharey iyo weliba doolow sifa ay ula dagaalamaan cadow kasta oo markaasi ka hor yimaada hanaanka lagu xoreynayo gobolka jubbada dhexe iyo qaybaha gobolka gedo ay kaga sugan yihiin ururka argagixisada al-shabaab.
dad aad u tiro badan oo dhalinyaro ah oo ka tegaya dalka Kenya, Ethiopia iyo weliba gobolada dhexe ee dalka ayaana soo gaadhayo magaalada Doolow iyo weliba sidoo kale Garbaharey sifa ay uga qayb qaataan kacdoonka ka curanaya gobolka Gado. waxaa dhanka kale la arkayay mas'uuliyiin ka aragti duwan maamulka Jubbaland oo ayaguna ka degaya magaalada Doolow sifa ay hormuud uga noqdaan qabashada magaalada Poole ee xarunta maamulka Jubbaland isla markaana ay saamiga ay markaasi ku leeyihiin ay uga qayb qaataan haddii ay noqoto dhanka awoodda iyo weliba haddii ay noqoto in la xoreeyo deegaanadaasi oo magac iyo weliba manfacba ay ku helayaan siyaasiyiinta ka aragtida duwan maamulka Jubbaland. laakiin dhaqdhaqaaq xoogan ayuu bilaabay Axmed Maxamed Islaam oo gebi ahaanba uga hortagayo duulaankan iyo weliba kacdoonkan laga curinayo gobolka Gado oo asagu markaasi uu haysto in masiir ahaan iyo weliba dastuur ahaanba ay tahay in asaga looga dambeeyo xiisada ka taagan gobolka Gado iyo wax ka qabashada arrimaha siyaasadeed ee cakaran ee ka taagan maamulka Jubbaland guud ahaantiis. dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa diyaarisay qorshayaal wax loogu qabanayo deegaanada laga xoreeyay ururka Al-Shabaab kadib markii ay soo badatay deegaanada ay dib ula wareegayaan kooxda argagixisada Al-Shabaab. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dardar gelin doonta qorshayaasha ciidanka xoogga dalka iyo weliba kuwa deegaanka ee la dagaalamaya maleeshiyaadka Al-Shabaab iyada oo ay maleeshiyaadkaasi maamulaan qaybo badan oo markaasi ka tirsan gobolada dalka. waana arintan aanu kasoo sheekaynay ee ku saabsan kacdoonka ka dhanka ah markaasi ururka argagixisada Al-Shabaab. deegaano badan ayay ururka dib u qabsadeen oo ay ka mid yihiin deegaano ku yaala gobolka Hiiraan iyo weliba Shabeellaha Dhexe. dhanka Galguduud ayaduna deegaano ayay dib ula wareegeen iyadoo weliba ciidamadu ay wadaan dadaal xoogan oo ay ku qabsanayaan deegaano aad u tiro badan. dowladdu ma laha qorshayaal ay magaalooyinka ay ururka ka qabsatay ay ciidamadu kusii joogi karaan. waxaana moodaa in ciidamadu ay dhex marayaan kadibna ay soo dhex marayaan ururka Al-Shabaab. arrintaasina micno darro ayay ku saleeyeen ama markaasi ayay ku fasireen qaar ka mid ah dadka lagu kor dagaalamayo oo ayagu arrintaasi dhibana u ah. dowladda ayaa laga codsaday marar badan inay wax ka qabato deegaanada ay ciidamadu qabsadaan isla markaana ay ururka dib u qabsanayaan. shacbiga ayaana dhibaatooyin kala duwan halkaasi loogu geystaa oo ay ka mid tahay iniga miyaa u fududeeyey inay ciidamadu soo gaadhaan deegaanadani, iniga miyaa warbixinta siiyey inaanu ka baxnay deegaanadan. su-aalo aad u tiro badan iyo weliba jawaabo aad u adag ayaa markaasi isku dhex maraya ama markaasi ku dhex maraya dadka deegaanka iyo weliba sidoo kaleeto ururka argagixisada Al-Shabaab. waana arrinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya uu dardargelinayo deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab in la geeyo ciidamo ayagu markaasi u tababaran qabsashada iyo weliba maamulidda deegaanada laga xoreeyay ururka argagixisada. dhanka kaleeto waxaa la bilaabayaa in maleeshiyaadka iyo weliba dadka deegaanka markaasi loo qoro lacago si markaasi ay u joogaan una ilaashadaan deegaanada ciidamadu ay gacanta ku dhigeen. waxaa dhanka kaleeto ayadana la qorsheynayaa in howlgallada la ballaadhiyo sifa markaasi loola dagaalamo koox kasta iyo weliba weerar kasta oo ka imaan kara ururka argagixisada Al-Shabaab. ugu dambeyntii dabley hubaysan oo ku dhumaalaysanaysa magaalada Muqdisho ayay ciidamada ammaanka gacanta ku dhigan iyadoo weliba ciidamadan oo ku hubaysnaa hubka fudfudud iyo weliba hub markaasi la sheegay inay rabeen inay ku weeraraan qaybo ka mid ah xafiisyada dowladda iyo goobaha dowladda markaasi ay iskugu imaato. marar badan ciidamada dowladdu waxay ka hortageen weeraro ururka Al-Shabaab ay soo diyaariyeen laakiin waxaad moodaa in ciyaal weero iyo weliba ururka Al-Shabaab uu ka dhexeeyo xiriir aad u dhow oo markaasi ay ku wada shaqaynayaan. waxaa dhanka kaleeto ay ciidamadu sheegeen inay ku raad joogaan gawaari loo ekeysiyey kuwa ciidamada booliska ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo la sheegay in laga soo buuxiyo qaraxyo iyo weliba markaasi hub aad u culus oo la rabo in lagu weeraro xarumo dowladeed. waxaana gebi ahaanba ciidamada ammaanku ay wadaan dhaqdhaqaaq xoogan oo uga hortagayaan isku day walba oo markaasi ururka Al-Shabaab ay ka geysan karaan magaalada Muqdisho. guud ahaan daawadayaal qodobadaasi ayaana warkeena u dambeeyey tan iyo warkan warka xiga intaan ku kulmi doonana waxaan iga tagay sidaas iyo amaana Allah.